marxalad adag bay maraynaa dal Soomaaliyeed baynu dhisaynaa oo ka bilaabanaa Puntland inay siday u tahay hooyada Soomaaliya isbeddelka Soomaaliya loo rajaynayo Puntland ayaa madaxdii naga horeysay ee garowsatay oo go'aansatay inay Puntland ay noqoto meesha ubuucda u ah nidaamka cusub ee dalka Soomaaliya haddana nala gartay markii dambe markaan 98 waxay nala garteen 2004 6 sano kadib ayaa dadka Soomaaliyeed waxay nala garteen in dawlad federaal loo baahay Puntland waxay ku dhisan tahay nidaam federaali ah oo saldhig ah nidaamka federaaliga waa midka aan rajaynayno Soomaali dib dambe inaysan u burburin Soomaali dib dambe inaysan isu buuran inaysan isu baahan in degaan walba dadka markaa jooga ay ku noolaadaan isla maamulaan macnaha federaalku waa intaas macna kale oo xabaarsiya male marka haddaan niraahno dawlad federaal aan nahay adawaadkii ama aaliya wixii lagu qaban lahaa dawladnimada iyo federaalkan ay noo dhisneen ma macnaan yeelanayna macno yeelan waxa weeye marka federaalnimadu waxa la rabaa inay noqoto federaalkii namuudajiskiisa ama tusaalihiisa inay Puntland noqoto wax badan baa hadda laga dheegtaa wax badan baa isteedyadii kale oo dhismay ay ka barteen waxaan rajaynayaa inaad u noqotaan macallimiin mustaqbalka habka dawladnimadu u shaqeynayso habka booliisku u shaqeynayo dabcan isteed walba iyo dawladda federaalka ciidamay leeyihiin laakiin fursadda ay haysataan ma haystaan ciidamada kaleeto amni darradaas inay ka baxaan weeye hadda priority-ga ugu horeeya oo iyagu haystaan laakiin idinku waxaad fursad u helaysaan inaad dhaqan gelin kartaan habkii booliiska u shaqeyn jiray oo magaalooyinka uga shaqeyn jiray oo maxaa yeelay magaalo degan ayaa la rabaa keliya inaad nidaamkeeda ilaalisaan haddii ilaahay oo hadda aanan laga baqaynin ciidan bannaan ka soo weerara iyo qalalaaso kaleeta aan looga baqaynin ood ogtihiin dalkeennu intiisa badan waa degan yahay meeshaad doontaan mari kartaa laakiin waxaan u baahannahay hirgelinta sharciga iyo ku dhaqanka sharciga iyo ku ilaalinta dadka sharciga meeshaas weeye meesha hadda annagu aan tabayno haddaan reer Puntland nahay oo tababarradaan aad u gelaysaan oo aan rajaynayo tababarkaas inuu noqdo mid miro dhala waxaan ii rajaynayaa guul waxaan inii rajaynayaa muddada aad ku jirtaan tababarka in aad noqotaan dad sida uu yahay uga soo dhalaala uga soo baxa waxaan rajaynayaa dad shaqada booliiskana ka adkaada shaqada difaaca ee hadda la sheegay haddii loo baahdana gacan ka geysan kara laakiin ilaahay idankiis waxaan rajaynayaa in xooggiina iyo shaqadiinu ay noqon doonto shaqooyinka booliiska magaalooyinka dhaca iyo gudaha Puntland inay noqotaan rajaynayaa in cadowga ciidamada hadda ku foogan inay ku filnaan doonaan baan rajaynayaa oo dhowaan aad maqli doontaan hawshaas soo gabagabowday marka guul fiican baan idin rajaynayaa insha Allah inta ay fursaddoodana waa inay soo noqon doonaa haddii ilaahay idmo si aan u arko performance-giina iyo meesha aad gaarteen waan uga mahad celinayaa macallimiinta ajaanibta ah iyo kuwa Soomaalida ah ee runtii gacanta ku haya oo isugu jira ciidamada dugsiga iyo ciidamada BMBF oo runtii tababaro la mahadiyay waayadaan doon bixinaya wax yidadiilo badan bay la gelisay awoodda tababarayaasheenna insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa in dugsigan horumarkiisa aan sii laabno qaabka ciidamadeena aan tababarnana aan xoojinno maraaxilo kala duwan oo takhasusaad kala duwanna inaan samayn doonno haddii ilaahay idmo aad baan inugu mahad celinayaa waxaan rabaa inaan intaas ku soo koobo hadalkayga waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi